السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا دمانتي طبعا أركان إذا كلا هذا يوتيوب channel كمال FX Academy ومع تفتح مال سودو هذا دمانتي مركلة طبعا واحد ندوب دونا weekly overview جاني ونسكب لابن دونا واحد نكب لابن دونا طبعا ويجي هراء weekly overview جاني سميني طبعا aynu taxliilinay inaynu update-kiisii iyo result-kiisii horta marka hore soo bandhigno intaa kadib aynu waxa la yiraahdo inay ku socono waxa la yiraahdo ka cusub iyo wiiga soo socda waxaynu suuqa ka filanno iyo movies-ka uu sameyn doono. Okay, haddii aan ku bilaabo dabcan charts baa jiray aynu ku soo dirnay channel-keena Malefix Academy channel description-ka hoosaan dhigi doonaa codda YouTube igala socota hadda waad ku soo biiri kartaa waan ku soo dhaweynaynaa dabcan halkaas macluumaadka oo dhan waxa la yiraahdo ardayda kula wadaagnaa sidoo kale group chat baan leenahay labadaba description-ka hoosaan dhigi doonaa iyo meel kasta oo akademiyada lagala socon karo social media leh haddii aan ku bilaabo charts-ka aynu soo gelinay weekii hore oo ilaa 20 waxaan la wadaagnay beer taxliilintood balse kuwii ugu saameynta badnaa oo iyaga si gaar ah aynu ugu soo dirnay channel-keena Telegram-ka ayaynu dabcan isla eegi doonaa wixii ka dhacay marka ilaa 6 beer ayaan ku soo dirnay oo haddii aad dib u raacdo dabcan waad inay soo heli kartaa iyagii oo kooban ayaynu halkan waxa la yiraahdo ku soo diyaarsanay before tii iyo dabcan after tii noqonaysa haddii aan soo koobo dabcan sidaad halkan ka muuqato haddii ay ku muuqato waxa la yiraahdo kan waa kii dambe saad dib aan u noqono sidaad arkaysaan 16 August aynu chartigan karnay waa weekii hore weekly overview-geeni marka maxaynu ka filanaynay USD JPY waxaynu ka filanaynay waxoogaa waxa la yiraahdo sell ah kadib inaynu waxa la yiraahdo buy ay u jahaysato markay waxoogaa sell ka yar ah aynu waxa la yiraahdo suuqa ka helno maxaa dhacay haddii aan update-ka chartigii update-kiisii wixii wiiga dhacay wiiga gudihiisa aan tuso kan buu noqonayaa dabcan waxaa dhacay isla wixii aynu doonanay xogaa sell ah baynu aragnay kadib suuqii uu soo noqday dabcan suuqu wuxuu ku xidhmay waxa la yiraahdo isagoo meelahan maraya oo wiigii uu ku dhacay balse waxaad arkaysaa in ay noo waafaqday boqolkiiba boqol baan odhan karaa طبعا تريدنج بقولكيبا بقول معها بس مركا كم بقولكيبا بقولين نوع وافقدي والسلير بينو كدورني كدي بحال يراهدو استاد اركيسان شارتي كوري سل كدي بحال يراه باي اركيسان sidoo kale waa August 24 keedii markaan aan screenshot ka kala qaaday dabcan waxa kastii inay clear yihiin baan filayaa cadeymii wata sidoo kale hadii aan ku socdo beerka kale isagana aynu ku soo dirnay wuxuu ahaa JBB USD طبعا مركز تاريخ السرع واني شاكرين كرتا واللي حتى أوكس طبعا حين كدورني إنه حقا وحلا رأي إن بايرس سوق كوارغنا باي كدب وسوق صاداته طبعا حين ترسلوي فيسكا وحلا را 1 2 3 4 5 لوجن هو سكي 100 كدب محل دعي ثيم تينك أي مكرمني السوق أما وحي السوق كرمني سلفتر كيسي باك دعي محل دعي باي بينو هنلي وأفتر سي طبعا باي بينو هنلي انتا كدب سوقي وصوان نقضي طبعا روليس كستو احترامي ودركيسا عندها طبعا معلنا وحوكو سي ديران مايو اينو كسعونا طبعا اينو قدوبنا بيرك حاجة وشي بي كاد طبعا ساقنا ستوكا المحانو كسوكني وحوقا السلقة كدب باي طبعا ويقا دحدي سيبينو كقادني وحالا يراهدو مركي انو وافقدي طبعا وصال idin tuso markii ay inoo waafaqday waatan waxoogaa sell ah kadib buy waxaynu leeyahay waxoogaa sell ah kadib buy waa kan hadii aan hal mar ku celiyo chartigii hore ee waxa la yiraahdo setup-ka inoo ahaa marka maxaynu ka qaadanay markii ay lowgan hoose timi aynu dabcan qaadanay fursadda iyada ah oo dabcan hadii aad channel-keena timaadid waad arkaysaa isagoo signal ahaan aynu u qaadanay inanka oo target-keena waxa la yiraahdo ilaa yahayga sare waxa la yiraahdo ka duwan طبعا markii aan sii forecasting gareysad arkaysaan bayga iskamaan oran iska sii soconay bas levelka ilaa inuu bay gaaro
kadib decision kalaad markaa imanaya oo dabcan suuqu inuu soo kala wareegay iyo inuu sii soconay isaga markaa ay u taallaa balse targetkeenu halkaasuu ahaa kadib maxaa dhacay markuu halkii gaadhay suuquu soo kala wareegay dabcan waxaad arki kartaa in ifan aynu waxa la yidhaahdo ilaa targetkeenii waxaynu ku cabirano haysana oo noqonaya wax qurux badan dabcan systems wada haysta intriga dabcan waxaanu ku galnaa xisaab mathematical logic baa ka dambeeya sidoo kale waxa la yidhaahdo stop losskeenu waa la mid logic xisaabeed baa ka dambeeya sidoo kale targetkeena everything wuxuu ku socdaa waxa la yidhaha mathematical logic aynu dabcan isticmaalno waad nala soo geli kartaa si aad noola eegto groupkeena iyo dhammaan haddii aad youtube keliya ku xiran tahay waa perfect oo waxa weeyaan weekly overview-ga waad dabcan heli kartaa balse waxa ka qurux badan inaad nagu soo biirto si aad layfafka iyo waxyaalahaas oo dhan dabcan aad cilmiga uga kororsato haddii aan ka socdo tradekan signal ahaan baynu isaga u qaadanay maasha allah arday badan baa waxa la yidhaha profit fiican ka samaysay aynu ku socono marka beerka xigi muxuu noqonayaa euro AUD isagana maxaynu ka doonanay waxa la yidhaha structure-ka noocan ah ayaynu ka suganay APC waxa la yidhaha markaa maxaynu halka kan markuu suuqu marayay waxoogaa sal ah baynu ka doonanay markuu halkan imaadaynayno haddana kadib uu suuqu kala haysto dabcan maxaad arkaysaa suuqii sal uu soo sameeyey intaa kadib waxa la yidhaha suuqii ugu yaraan uu ka soo booday halkii aynu doonanay taasi oo inoo ah mar kasta waxa la yidhaahdo inaynu sameyno risk free trade oo aynu qayb ka mid a faa'iidadeena qaadano sidoo kale tradeska inta kale aynu kaga jirno aynu iyagana risk free trade ka dhigano okay dabcan waynu qaadanay tradekan ardayda nagula jirta iyo dhammaan waxa la yidhaahdo dhammaan guud ahaan maal fx academy ardayda ku jirta way wada qaateen sidoo kale waxa la yidhaha profit fiican ayay ka sameeyeen okay aynu ku soconno marka kan euro JBB ida laftarkeyga waynu soo dirnay 16 August dabcan waa markii waxa la yidhaahdo aan live-ka galnay kadib weekii hore oo waxaan filayaa in uu jimcihii hore weekendgii hore uu ahaa ilaa waxa la yidhaahdo 14 bisha haddii aanan khaldanay jimcay ahayd sabtidii waxay ahayd 15 16 waxay ahayd weekendgii intii lagu jiray 17 bisha dabcan 16 bishan gooyay taartigan oo noqonaysa waxa la yidhaahdo maalin isniin ah okay waxaanu ka doonanay waxoogaa buy intaa kadib sell okay maxaa dhacay marka maxaa dhacay waxoogaa buy-gii yaraa ah waad aragtaan uu samaystay suuqu kadib sell uu soo jihaystay dabcan suuqu uu soo jihaystay ugu yaraan maxay taasi fursad kuu siinaysaa dabcan tradekan ma aynaan qaadan sababtaynu u qaadan weynay ruleskiina ma ixtiraamin oo waxa la yidhaahdo intrigii saxda ahayna muu siin balse ugu yaraan maxay kuu sheegaysaa how waxani ay beautiful u tahay waxani ay powerful u tahay dabcan waad arki kartaan siduu suuqu u ixtiraamay lastly taasi waa euro JBB ugu dambeyn waxaynu haysanaa dahabka isagana dabcan ka sameynay waxa la yidhaha chart okay set up haddii aan si kale u dhaho waxaynu ka doonanay waxoogaa up ayaynu ka doonanay dabcan 16 August isaga laftarkiisu intaa kadib sell maxaa dhacay marka waad arki kartaa tus oo taabsi weeyaan dabcan Soomaalidu waxaasi waxa la yiraahdaa dabcan inta badan isticmaasha kelmadda noocaas ay tus oo taabsooyeen waxa uu noqdaa kadib waxaanu ka suganay buy-gi suuqu u ixtiraamay intaa kadib sell dabcan suuqa hadana sellkii soo ixtiraamay labada jeer macnaa in la amrayo kale waa after tistaad arkaysaan inaha waxa ku soo koobi doonaa dabcan overview-gii weekii hore inaynu waxa la yiraahdaa ka daba tagno oo aynu update kareynay isaga laftarkiisa dabcan waad arki kartaan aynu marka bilowno aynu iska bilaabano waxa la yiraahdo weekly overview-geena maanta yambeeriskeenu ku bilaabi doonaa dabcan sida caadadeyno ah aynu mar kasta sameyno oo sidoo kale trade view-geenu u leeyahay ama watch list-giisa waxa ugu horeeya yambeeriska maxaynu ka filanaa dabcan waxoogaa up ah intaa kadib waxa la yiraahdo sell markaa kadib in ay soo laabto aan sidaa u leeyahay hadii waxoogaa sharxaadaas bixiyo halkan ku haysanaa 3 waxaynu suganaa 3 intaa kadib inuu suuqu maxay samaysto 3 kale si uu dhammaystiro 7 dhaqaaq aynu mar kasta
isticmaalno ama aan markasta waxa la yidhaha ardayda baro oo aan kula taliya inay bartaan. Okay, taasi waa USD JPY. Euro-yen maxaynu ka doonaynaa? guud ahaan horta waa buy. waxaanu ka doonaynaa dabcan iyada laftarkeeda inay qaadanaan filayaa oo aynu somewhere here ka qaadanay waxa la yidhaahdo high-gaa sare aynu kasoo cabirinay 3 dhaqaaq oo dabcan sida noqonaya boqolkiiba boqolkan baynu ka galnay. kadib suuqu waxa la yidhaha ugu yaraan uu soo booday taasi oo inoo ogolaatay inaynu risk free trade qaadan karno oo aynu waxa la yidhaha stop loss-keenii lowgan yaalay 1.618 ka hooseeya aynu entry-ga keenno dabcan qayb faa'iidada ka midana aynu xidhanno. wuxuu ahaa signal aynu qaadanay jimcihii. haddii aan update gareeyo waxa la yidhaahdo waxaanu ka doonaynaa waxoogaa in ay suuqu uu yar nasto dabcan ninka uu soo yar nastay saad arkaysaan waa selyar intaa kadib uu jihada guud ee baygaa uu aado dabcan kuma talinaya in la selgareeyo keliya baygaree waxa la yidhaha haddii aad fursad ka hesho dabcan fursaddii hadda waxay ahayd boqolkiiba boqolkan aan iminka cabirayay dabcan waxaan filayaa in ay markaa already dhan ay waxa la yidhaahda dhacday qofkii ku jiraa qofkii kalena fursad kale ilaa iyo inta ay haygaa sare jebinayso ha ka sugto. JPY ayaa inoogu xigta. JPY iyada laftarkeega waynu soo diyaarinaysa waxa la yidhaha taxliilinteeda waxaynu ka doonaynaa waxay la mid tahay Euro-yen waxaynu ka doonaynaa in waxa la yidhaha ay halkan kasoo boodo way ay uga soo boodaysaa sababtoo waxay joogtaa boqolkiiba boqolka 3 dhaqaaq marka la cabiro kadib waxaynu ka doonaynaa bay aado. AUD JPY waa la mid waxaana sababay correlationka marar badan waan ka sheekeeyaa correlationka ayaa sababaya iyada laftarkeega maxaynu ka suganaa buy. dabcan baygaasi khasab maaha inuu high-ga sare jebiyo oo markasta suuqu muxuu samayn karaa waxa la yidhaha wuxuu samayn karaa 3 waves pullback ama waxa la yidhaha 3 wave oo waxa la yidhaahda slag aynu nidhaa dabcan boqolkiiba boqol ku dhamaada. marka kan wuxuu noqon karaa xidhiidhiye keliya ka halkan ka soo boodaya muxuu noqon karaa keliya wuxuu noqon karaa xidhiidhiye intaa kadib maxaa dhici kara in suuqu waxa la yidhaahdo uu 3 kale kusii darsado oo uu lowgan hoose soo laakiin ugu yaraan waa inuu halkan hoose kasoo boodi karaa halkan uu joogo inuu suuqu kasoo boodi karaa. okay waana halka keliya waa uu uga soo boodaya haddii aad isweydiinayso waa halka keliya ee buyerska iyo sellersku ay agree ku yihiin ama ay isla ogol yihiin in ugu yaraan waxa la yidhaahdo suuqu ka soo boodo ugu yaraan 3 dhaqaaq uu suuqu ka soo boodo. okay CAD JPY maxaynu ka doonaynaa waxa la yidhaha in ay dhammaysato 3 dhaqaaq oo slag ah intaa kadib ay kasoo boodo slagta laftarkeeda. okay khasab maahan in ay waxa la yidhaha kusoo darsato lowgan hoose aynu sheegnay balse sidoo kale waxa suuragal ah in ay halka laftarkeeda ka boodo oo ay sida new high ku samaysato. marka khasab maaha in waxa la yidhaahda ay samaysato lugtan selka balse saynu ku saadaalinay imika waxaynu ku saadaalinay inay samaysan doonto markaynu eegno dabcan inta ay labadan leefal waxa la yidhaahdo u dhaxayso leefalkan noqonaya haygan sare leefalkan iyo waxa la yidhaha leefalkan inta ay u dhaxayso waxa la yidhaahdaa dhinacna joobi bay dabcan ku jirta saad arkaysaa waa iska laalaabanaysaa marka confirmation marka ay lowgan hoose soo jebisaad helaysaa in ay waxa la yidhaha 3 dhaqaaq oo isleega samaysanayso. sidoo kale haddii ay haygan sare jebiso maxaad helaysaa confirmation maxay ah in aysan samaysanayn waxa la yidhaha 3 dhaqaaq ee weyn oo ay sidaa ku tagtay marka labada leefal inta ay u dhaxayso ka warsug dabcan. okay yemberska hadaynu halkaa uga gudubno aynu u galno waxa la yidhaahda USD dollar. okay USD CAD aynu ku horeysiino. USD CAD maxaynu ka sugnaa weli hadda in waxa la yidhaha lasii salgareeyo sababtoo ah trendi kasoo bilowday high-gaa sare saad arkaysaan deen dib u noqdo ama aan daily oo kala tago. okay waa week dabcan waa very weak weeye USD dollarku saad arkaysaan USD waa very weak Euro USD kor baa loo wadaa USD CAD sell baa loo wadaa taas waxay ku cadaynaysaa in
dollarku weak yahay ama daciif yahay xaaladdan aynu joogno. Okay, waxaynu ka suganaa in weli hadda waxa la yidhaha lasii salgareeyo selka hoose tago. tusaaleahaan fursaddan oo kale oo hadda halkan ka bannaan fursaddan oo kale tusaaleahaan haddii uu waxa la yidhaahdo 100kan markuu ku dhaco waxa la yidhaahdo waxoogaa buy ah kadib in lasoo salgareeyo kadib in lasoo salgareeyo. Okay, aan ku socdo marka salbin guud ahaan ka doonaynaa buy fursadda buy ah waxba ka raadinin dabcan kor bay dabcan ugu soo noqotay saad arkaysaan balse structure-kan bay dhamaystiraysaa siday noo muuqatay structure-kan ay waxa la yidhaha dhamaystiraysaa sorry kadib 100% ayaa in laga soo salgareeyo sellers ka soo galaan aynu ka sugan. Okay, GBP USD for our dabcan aynu nimaadno. Okay, sorry waxaynu ka suganaa guud ahaan waxaynu ka suganaa waxa la yidhaahdo buy saddexdan dhaqaaq ee hayga sare ka yimi in ay 100% gaadhaan kadib waxa la yidhaha suuqu uu u sii socdo fursadda guud ee buyda. Okay, AUD USD laftirkeega waxaynu ka suganaa saddex dhaqaaqo isleeg inay samaysato oo waxoogaa sellers lagu sii arko ama bearish walba kaad u taqaano. intaa kadib ugu yaraan halkan 100% ah sida noqonaysa cabiraadiisu. Okay, waxay noqonaysaa 100% ugu yaraan laga soo boodo saddex dhaqaaq ay ka soo boodaan. Okay, aan ku socdo NCD USD waxaynu ka doonaynaa xidhaa waxoogaa sell ah intaa kadib ay ka soo boodo waxa la yidhaahdo aynu ku aragno buyers waxba sii salgareyn salkeer waxba ka hays odhan eriyo suuqa inaad eriyatid maaha oo sidaa u cayrsatid balse iska sugintahay imanaysa waxa la yidhaahdo lowgan hoose markaa kadib baad soo baygareyn kartaa dabcan updateska iyo waxyaalahaas oo dhan iyo haddii signal ka bannaanaado ama ay fursad waxa la yidhaha ka muuqato dabcan waxaanu kusoo diri doonaa channelkeena markasta sidaan nii sheego linkigiisaan descriptionka hoose ee videogan idiin dhigi doonaa soo biiri kartaan oo idin soo dhaweynaynaa. Okay, sidoo kale khasab maahan in waxa la yidhaahdo ay selkan samaysato that's why aanu leeyahay waxba ha caydhsan suuqa. waxaa suuragal ah halka ay joogto laftarkeeda in waxa la yidhaahdo ay sidaa uga samaysato suuqu buy uga soo boodo that's why aanu leeyahay suuqa ha eryanin. Okay, euro waxaan ka wadaa USD beariska haddii aan halkaa uga soo gudbo dabcan waxaan filayaa in euro USD ay ka maqan tahay watchlistiga balse aan eego inay noo diyaarsan tahay. Yes, ida laftirkeegu way noo diyaarsan tahay. waxaynu ka suganaa in ay waxa la yidhaahdo waxoogaa sell aynu kusii aragno intaa kadib lasoo support gareeyo oo ay somewhere here ay ka hesho taageero oo kor loo soo qaado ama ay buyers ka soo galaan. markaan leeyahay taageero waxa ka wada kor loo soo qaado. Okay, waxaynu ku base gareynay dabcan waxaan ku base gareynay saddex dhaqaaq kadib waa xiriiriye kadib saddex kale 100% oo sida ka noqonaya. Okay, muxuu noqonayaa 100% dabcan intaa kadib oo suuqu halkaa ka soo boodo. Okay, taasi waa euro USD. aynu u galno marka crosseska aynu ku bilowno euro AUD saan idinku tusay waxa la yidhaha bilowgii hore dabcan signal baynu ka qaadanay oo waxa la yidhaahdo aynu ka qaadanay halka kan channelka aynu kusoo dirnay dabcan intaasoo bib waynu ka qabsanay 140 bib aynu ka qabsanay dabcan oo ardayda groupka igula jirta aan cilmigana u faa'iideeyo sidoo kale aan lacagna la sameeyay si free ah ay qaateen sidoo kale cilmigii lagu keenay iyo waxyaalahaas oo dhan ay barteen. marka maxaynu guud ahaan ka suganaa iyada imika waxaynu ka suganaa in waxa la yidhaahdo la sii support gareeyo oo waxa la yidhaahdo ay buyers soo muuqdaan. Okay, balse waxba ha sii gelin oo waxa la yidhaahdo halkan imika ha ka gelin ha iska odhan macallinku ku forecasting gareeyay waxa la yidhaahdo inay halkan buy tahay kadib waan geliyaa. no, sidaa maaha tradingku waa in aad
rules yeelan karto specific rule waxa la yidhaahdo confirmations leh rules leh waxyaalo badan laga eegayo markaa kadib aad suuqa geli karto haddii aad suuqa iska dhex geliso markaad doonto waxay noqonaysaa in aad waddo aqoon la-aan iyo waxa la yidhaha degdeg kugu jiro intaa kadib maxaa result noqonaya in gebi ahaanba ay lacagtaadii los gasho oo aad sidaa ku kadib aad suuqii waxa la yidhaahdo isaga dib eeda u saarto markaasi aysan taasi u dhicin dabcan waxaan kugula talinaya inaad 3 waxyaabood barato number 1 awoodii aad suuqa ku forecasting gareyn lahayd ama aad ku saadaalin lahayd number 2 waxa la yidhahdeen proper money management ama sida risk management khatarta loo maamulo sababtoo waa khatar waxani oo ganacsi oo dhan baa khatar ah sidoo kale psychology waa inaad yeelan kartaa mindsetka noocaasa oo emotions iyo waxyaalaha aad ku xakameynayso marka traderka ay saddexdaasi waxa la yidhaahdaa inay ku kulmaan wuxuu noqonayaa dabcan qof si nature ah ama dabiici ah profit u sameeyo marka saddexdaa qodob ku dadaal dabcan aynu ku soconno crosseska euro gbp maxaynu ka doonaynaa in ay waxa la yidhaahdo waxoogaa selaha aynu kusii aragno oo ay dhammaystirto waxa la yidhaha 3 dhaqaaq waxa la yidhaha ama 7 dhaqaaq aynu nidhaahno okay waxay dhammaystiraysaa 7 dhaqaaq markaa kadib ay waxa la yidhaha halkan support ka hesho hoose oo ay ugu yaraan ka soo boodo 3 dhaqaaq haddii aysanba sidee new high ku samaysan okay oo aysan high-gan hore jebin marka inay iminka waxoogaa waxa la yidhaha loo soo daadiyo intaa kadib ay waxa la yidhahda buyers halkan hoose ka soo muuqdaan khasab maahan in ay samaysato lowgan hoose oo always waxa dhici karta inta aysan lowgan hoose jebin in ay waxa la yidhaahdo ay halkaa ka noqoto oo ay gaabato iyadoon 100% gaadhin marka ka taxadir waa sababta aan u leeyahay waxoogaa kan yar ha iskaga dhex dhici markasta maxaa jira sabab ay kan yar aysan u dhici doonin marka ka taxadir fursadda weyn ee bayga waxa la yidhaha isha ku hay iyada ka faa'iidayso JBBAUT saad arkaysaan waxaynu ka doonaynaa buy inay aado aynu kusoo diyaarinay saad arkaysaan haygan hore dabcan waa la jabsaday okay haygan hore waa la jabsaday sidaad arkaysaan balse structure-ku xogaa uu yar foolxun yahay oo structure qurux badan maahan si guud ahaan bay baynu ku suganaa waxaanu door bidanaa waxa la yidhaahdo long side ama jihada sare JBNCD waa same thing waxaanu ka doonaa inay waxoogaa bay ah iyada laftarkeyga aynu ka aragno intaa kadib la soo salgareeyo why aan by there aynu ka doonaynaa sababta waxaan doonaynaa inay isleegtan dhammaystirto haddii aan markaa isleegtaa cabiro isleegyadu 100% bay ku dhamaadaan dabcan 100% inta ay gaadho waxaa la yidhaha markaa kadib suuqu soo daato markaa khasab maahan in ay baygan samaysato sababtoo ah markasta waxaa jira number halkan ku jira oo aan marar badan ka hadlo oo noqonayo 60.8ka oo ay dabcan ku dhammaan karto markaa already way taagan tahay saad arkaysaana waxoogaa drop ayay soo samaysay markaa khasab maahan in aynu ku aragno waxa la yidhaha bayga sare okay dabcan inaad fahanteen baan filaya oo aan idiin raaciyey scenaariyooyinkii ama possibilitygii iyo macquulnimooyinkii kale ee ka banaanaa dabcan beeriska ayaa dabcan inoo diyaarsan marka laga hadlo forex-ka dabcan aan raaciyo dahabka isaga laftarkiisa aan eegno waxaynu ka filananaa waxoogaa inaynu sel ka aragno si ay u dhammaystirto 100% halkan okay aan ka dhex saaro 60.8ka 100% si ay isleegta yar u dhammaystirto isleegtan haygan ka imanaysa si ay u dhammaystirto waxaanu ku doonaa waxoogaa sel ah intaa kadib ay kasoo boodo ugu yaraan 3 dhaqaaq haddii aysan sidaaba new high ku samaysan oo aysan waxa la yidhaahdo sidaa haygaa sare
ka jabsan soo gaaraan 3 dhaqaaq waa sababta aan idiin lahaa imika ka hor boqolkiiba boqol haddii uu structure-ku kuu saxan yahay ugu yaraan waxaad ka helaysaa in suuqu ka soo boodo taasi oo kuu suuro gelinaysa in aad hesho risk free trade oo aan marar badan ardayda uga faa'iideeyo oo aan markasta kula risk free trade abuura marka uu suuqu soo boodo oo waxa la yiraahdo isaga laftarkiisa markuu ka soo boodin maahan oo markiiba ma abuuraysid balse iyada laftarkeeda waxa la yiraahdo sabab aad u abuuraysid baa jirta oo meel baad ka eegaysaa oo dhaqaaqa saddexaad dabcan waxaad ka soo qaadaa in dhaqaaqani uu dhacayba dhaqaaqa saddexaad ayaad waxa la yiraahdaa sida u saaraysaa waxa la yiraahdaa inay retracementiga kadib boqolkiiba 50 marka uu soo gaaro sidan oo kale ah ayaad stop loss-kaagii lowgan hoose yaalay aad soo raraysaa entry-gaad keenaysaa ama last low baad keenaysaa intaa kadib waxa la yiraahdaa inay risk free trade baad haysataa sidoo kale haddii ay dhowr trade kaaga furnaayeen qaybtood baad xiranaysaa profitkii qayb ka mida waad qaadatay sidoo kale risk free trade baad abuuratay kadib suuqa sug waxa la yiraahdo fursadda weyn ee aad rajaynaysa ee bayd ah uu sidaa ku sii socdo iyada in kale haddii uu soo laabto markaa wax khasaara ma helaysid ifan iska daaya qayb ka mida profitka waad hore ula baxay marka waxay tusinaysaa dabcan sida ay waxaan ugu quruxda badan yihiin inahaasaynu dabcan ku soo koobi doonaa instrumentskan kale dabcan halkan iyaga laftarkooda watchlistigii noogu jiray oo suuqyo kale saad arkaysaan oo dahabka laftarkiisu ma ahan forex aad ogtiin ee idin sheegay oo commodity market ama suuqa badeecooyinka lagu iibiyo sidoo kale kuwani waxa weeyaan S&P iyo waxyaalaha Nasdaq waxa la yiraahdo YM Nikkei kuwaas markaa waxay kamid yihiin dabcan indiceska iyaga laftarkooda mustaqbalka dhow waxaan filayaa in aynu dabcan soo kordhin doono inaynu iyaga laftarkooda forecastingkooda bixino sidoo kale aynu trade ahaan u qaadano insha Allah soo dhawaada dhamaantiin description-ka hoosaan dabcan idiin dhigi doonaa haddii u baahan inagu soo biirto marar badan saan idin sheegay waan idin soo dhaweynaynaa dabcan soo dhawaada kamca furan ku soo dhawaada inahaasan dabcan ku soo koobi doonaa waad salaamantihiin waxaan idinkaga tegayaa intaaynu ku kulmano kan xiga oo noqonaya wiiga dambe salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu